maanta halkan sida loo socotaan magaalada Berbera waxaa baryahan dambe ka socday barnaamij la yiraahdo Berbera oo cagaaran oo nadiif ah. barnaamijkaasi qaybo fara badan ayuu ka koobnaa. waxa uu ka koobnaa qaybaha ah inaynu dhir ku beerno magaalada oo aragtay goobo fara badan oo beeray. waxa uu ka koobnaa in qashinka sida ugu habboon loo maareeyo runtii oo dawladda hoose degmada Berbera 8 saacadood oo maalintii ka mid ah labada gelin bay u shaqeyso bulshada oo ay ka qaado qashinka si bilaasha. sidoo kale waxaa ka mid ahaa iyaduna in bulshada wacyigeeda kor loo qaado si la isula wada jaan qaado oo aynu noqono ama aynu uga dhamayno barnaamijka aynu bixinay Berbera cagaaran oo nadiif ah. runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin bulshooyinka magaalada Berbera inay qayb laxaad ka yihiin ama ay qayb libaax ka qaateen sidii aynu qashinka u maareyn lahayn oo maanta aynu ognahay in badan la inagu majeerto in magaaladu nadiif tahay. laakiin dadka ku nool inta badan meesha aad ku nooshahay inta badan waxa yaala inta badan hore uma arkaysid, laakiin marka magaalooyinka kala tagtay ayay aad ugu soo noqotay magaaladii ayaa dareemi karaysaa. ujeedkeena guud markaa waxa weeyaan waxaynu u baahannahay nidaamkii hore ee qashinka aynu ula dhaqmi jirnay inaynu ka guurno. waxaa barnaamijku yahay in dam site-kii ama godkii qashinka ee iminka aynu isticmaalno laga raro goobta magaalada ku dhow. sidoo kalena loo bedelo nidaamka hadda aynu u isticmaalno nidaam ka duwan oo aan qiiq iyo quruntoona keenaynin. sidaa awgeed mashruucani ama qaybtan wacyigelintahay waxay qayb ka tahay iyaduna inay isla wada jaan qaadno oo bulshadiina qayb lixaadna ka qaadato sidii horeba uga qaadan jirtay. barnaamijkeenu markaa waxa uu daaran yahay sidii aynu sida ugu habboon u maareyn lahayn qashinka. waxaa kaloo ku dhex jirta iyaduna insha allahu qashinka inagu qashin baynu u naqaanaa, laakiin in loo bedeli karo lacag in loo bedeli karo oo loo bedeli karo waxyaalo kale oo dib looga faa'iideysto. waxaad aragteen magaaladeena dad soo qaata biraha godka qashinka la geeyo oo dib u dhoofiya Itoobiya dib ugu dhoofiya. dib baa loo farsameeyaa oo looga dhigaa wax dib loo manaafacadsado. marka halkaasi aynu u gaadhno oo hal casri aynu u maareyno haddii Ilaahay ka dhigo ayay daaran tahay guud ahaanba xafladda halkan aynu isugu nimid maanta insha allahu. marka waxa ay la tahay inaan soo dhaweeyo dhammaan marti sharafta iyo bulshooyinka reer Berbera halkan ku soo dhaweeyay idhaahdo aad iyo aad